Asalaamu calaykum. Insha Allah muuqaalkii hore iristikhlaad ayaan ooga soo hadalnay ama ku soo sharaxnay xadgudubada heerka koowaad iyo tusaalooyinkooda ayaan ku soo sharaxnay. Muuqaalkani waxaan diiradda ku saaraynaa insha Allah xadgudubyada heerka labaad iyo tusaalooyinkooda insha Allah. Overtrading faanda tubida kharaad xadgudubyada darajada heerka labaad. Deze overtredingen brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Xadgudubyadani badqabka amniga badbaadada dadka si aan toos ahayn ayuu u gelinayaa halis. Onrechtstreeks يعني indirectly si aan toos ahayn ayuu u gelinayaa halis. يعني si toos ah maaha laakiin si aan toos ahayn. Voorbeelden tusaalooyinkooda. Tusaalaha ugu horeeya insha Allah. Rechts inhalen in baabuurta kale aad ka baasgarayso dhanka midigta ah waardaad verboden is. Meeshaasoo aan la ogoleen ama ay tahaba mamnuuc. In baabuurta dhanka midigta aad ka baasgarayso normally lama ogola. Laba qodobood bas la ogolyahay insha Allah. Laakiin dib ayaan ka sharxi doonaa si gooni ah hadduu la hidmo. Rechts inhalen dhanka midigta ah inaad ka baasgarayso. Inhalen waa maxay? Ka baasgarayso aad baabuurta ka martood kaga hormarto. Waar dat verboden is meeshaasoo ay mamnuuc ka tahay in gaadiidka baabuurta kale dhanka midigta aad ka baasgarayso. Gaariga gaduudka hadduu rabo inuu dhaafo gaariga cadka dhanka midig asoo ku sugan inuu baasgareeyo lama rabo. Waa inuu dhanka bidix ka maraa kadib uu baasgareeyaa uu dhaafaa. Tusaalaha labaad. Het oranje geel verkeerslicht nalka orange-ka ama jaalaha ah negeren inaad inkirto. Nalka huruuda ama jaalaha ah inaad inkirto. Verkeerslicht waxaa la dhahaa ishaarada. Verkeerslicht waxaa la dhahaa ishaaro. Oo asoo jaala ah inaad inkirto iska socoto aadan istaagin. Sida caadada ah nalka hadduu jaala noqday waxaa lagaa rabaa inaad istaagto. In case haddii aadan awoodin inaadan istaagi karin markaa waa socon kartaa. Laakiin haddaa awoodin inaad istaagto waxaa qasab inaad istaagto. So het oranje geel verkeerslicht negeren nalka orange-ka oo jaalaha ishaarada ah inaad inkirto waa xadgudubka labaad oo heerka darajada labaad. Tusaalaha saddexaad. The veiligheidsgordel niet dragen. Xariga ama suunka amniga inaadan xiran. Waa xadgudubka tusaale saddexaad oo ku saabsan heerka darajo oo labaad. Inaadan xariga xiran ama suunka aadan xiran waxay ka dhigan tahay inaad xadgudub geysatay. Tusaalaha afaraad. Het verkeersbord boorka B1 loo yaqaano magaciisana ah Hightounden ilkaha yaxaaska. Boorkani sambuuska ah waxaa loo yaqaanaa B1 sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Hightounden. Iyo boorka kale B5-ka loo yaqaano oo ah stopboardka negeren inay inkirto. yacni labadan boorood ayaa hortada yaalo oo ay ka dhigan tahay in darawalada midigta iyo bidixda kaaga imaada inaad siiso. Waa inkirtay waa socotay. iyadana waxay ka dhigan tahay in aad qalad geysatay ama aad geystay xadgudub.
xadgudubkii heerka labaad oo dadka u geysan kara halis aan si toos ahayn. Mogelijk sancties cunaqabateyn ama ganaaxa macquulka ah oo lagu saari karo. Ganaaxa macquulka ugu horeeya geldboete. Ganaax lacageed ayaa lagu ganaaxi karaa oo gaaraysa ilaa iyo €2,000. Xadgudubka ama ganaaxa labaad waxa onmiddellijke intrekken van het rijbewijs. Si degdeg ah waa lagala noqon karaa laysanka. Onmiddellijke, si degdeg ah. Intrekken waa laga ceshan karaa van het rijbewijs, laysanka. Cunaqabateynka saddexaad komt de zaak voor de rechter. Kiiskaada maxkamadda ama xaakimka ayaa loo geyn karaa. En die kan in verval van het recht tot stuur uitspreken. Wuxuuna ku dhawaaqi karaa xaqi aa u lahayd inaa wax wado in uu kaa rido ama uu ka dhigabo expire dhacid muddo 8 maalmood ugu yaraan ilaa iyo 5 sano. Muddo 8 maalmood ilaa iyo 5 sano. So marka mogelijk sancties يعني cunaqabateynada lagu saari karo macquulka lacag way jirtaa oo lagu ganaaxaa ilaa iyo 2,000 ama ka badanba. Waxa laakiin ugu dhib badan in laysanka lagaa ceshto ama in maxkamad lagu diro oo lagu dhaho muddo 8 maalmood ah ama ugu badnaan 5 sano laysan ma qaadan kartid, gaarina ma moodi kartid. Insha Allah xadgudubyada heerka labaad waxaan ku soo koobaynaa intaas insha Allah. Waxaa inoogu xigi doonaa derde graad, vierde graad, snelheid. Yani xadgudubka heerka saddexaad iyo afaraad iyo kuwa khuseeyaba xawaaraha insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.